Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Halkaan naga daawanaysaan waa Soomaaliya Media Action iyo page-ka Soomaaliya Media Action. Fadlan hadday tahay markuu horeyso daawata YouTube-ka subscribe noo saar, page-kana follow noo dhahamatihiin. Dadka ugu gaagaaban dunida ayuu maanta barnaamijkeenan ka hadlayaa. Dadka ugu gaagaaban dunida ayaa lagu tilmaamaa inay ku nool yihiin Brazil iyo Argentine, waxaana lagu tiriyaa dadka ugu gaagaaban dunida inay halkaas ay joogaan. Waxaa kaloo haysata dadkaas gaagaaban cilladaha wadamada ay joogaan. Mararka qaar waxay la kulmaan faquuq aad u xoogan, taasoo marar badan hay'adaha xuquuqda insaanka ee arrintaas ay dood weyn ka keeneen. Hase ahaatee, hay'adda FIFA uu hogaamiyo Gianni Infantino iyo gruubkiisa ayaa u sameeyay koobka kubadda cagta dunida inay ka qayb galaan. Sanadkan dadka gaagaaban koobka adduunka loo dhigayay wuu baaqday coronavirus dartiis ayuuna u baaqday, waxaana aad ugu hortami jiro aad looga yaqaanaa Julia oo ah weeraryahanka dadka gaagaaban kuwa ugu khatarsan ka mid ah, Fernando oo dadka gaagaaban kuwa ugu khatarsan Argentina kasoo jeeda, Beraldo oo kasoo jeeda Portugal oo dadka gaagaaban aad ugu hardama kubadda cagta ka mid ah, waxayna ka mid yihiin dadka aadka loogu qadariyo kubadda cagta dadka gaagaaban. Muuqaalka soo socda waxaad ku arki doontaa dad aad u gaagaaban kuwaas oo ku hardami doona kubadda cagta. Hase ahaatee, sanadkan koobka adduunka loo qaban jiray dadka gaagaaban waa uu baaqday. La yaab dadka markaad aragto muuqaalkooda soo socda, runtii waad yaabi doontaa. Kuwa dadkeena gaagaaban ee Soomaaliya jooga, waxaanba leeyahay raalli ahaada, adinka kuwa ugu dheer qaaradda Afrika ayaad ka mid tihiin. Bal ila daawada muuqaalka cajiibka ay soo socdo ee dadka gaagaaban. Este proyecto es un ejemplo de inclusión para demostrar que todos podemos, a pesar de tener diferentes capacidades. Somos personas comunes como todos y bueno, podemos hacer deporte y demostrar nuestras habilidades. Bueno, y también con mi compañero Jonathan Mato tuve la posibilidad de conocer a Leo Messi en la cancha de Huracán, cuando entrenaron ahí en la cancha. Y bueno, no, la verdad que estamos muy contentos. Le conté sobre el proyecto este y me dijo que había escuchado hablar sobre nosotros, así que para que llegue al oído de Messi es porque se está difundiendo muy bien. Lo importante es resaltar la inclusión, destacar que con esto logramos tener un reconocimiento, una herramienta más para pelearla esta vida tan difícil que quizás por nuestra condición, nuestra discapacidad, somos uno de los más discriminados.
Nosotros nunca en la vida soñábamos en jugar una partida oficial, un campeonato, una copa oficial, pero de que fútbol trabaja. Todavía no somos reconocidos por un esporte paralímpico, pero creo sí que en breve estaremos en una Paralimpiada con el esporte de fútbol de trabajo. waxaan rabaa inaad fiidiyowan like saartiin inay lacag lagama qaadaye like iska saar ha adaan kula hadlaya adiga